بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصومالية ملك استاذ كجوكتان دافع عالمك قالوهان أمد الصومال إيحيسي سبرشة أف صومالية وإستاذ فنحو إذا لمر لبات كل انتم عنه ونكسن ولا لي العشر كان ما انتوا عشر قار وأن أجواب السؤال يسوي دين dadweyne Soomaaliyeed ee xiiseeya barashada af Soomaaliga gaar ahaan su'aasha waxay ku saleysan tahay oo ahayd af Soomaaliga waa ku hadlaa laakiinse waxa ay dhibayo qoristiisa ayaa ay dhibayo marka sidee ugu sahlan oo u baran karaa qorista af Soomaaliga su'aashaasi waxaan ka helay dhowr qof oo isoo weydiisay ورنتي كلا جوجا دافع عالمك جرماني ولا يسوي سويدن دنمارك أستراليا يمن سعودية ما أصلاً أي سؤال إذا اللي يسوي دي مركب وحن أقول تلاقي بالسؤال أنا كجوابيه إن أنا أدي 10 قارة دتك وجود هان يكفى إذا استان marka walaal markuu ugu horeyso waxaan rabnaa inaan ogaatiin ama aad la socotaan in af Soomaaliga uu aad u qurux badan yahay runtii uuna yahay inta aan ogahay aniga way dhici kartaa luqado kale inay jiraan laakiin si intaan ogahay uu yahay luqadda kaliya oo sida loogu dhawaaqo loo qoro oo wax isbedel ah inuu ku sameyn ama erey ziyaada ah ama erey ناقص إنه كجريمبا وسيد اللوجو دواقو سيد اللغة العربية وحن قلنا قريب بدنا وحاجرت اللوجو دواقي لكن أن لقرينين إنجليز كسيدو كلامتو مركا لكن اللغة الصومالية سيد عدك وياهي أيو قرمية حرف زيادة أما حرف ناقص ملحة مركا ساسرت للصعو midda kale waxa waaye luqad waliba waxay ka kooban tahay luqadda Soomaaliga waxay ka kooban tahay iyo luqadaha kaleba luqadda waxay ka kooban tahay shibana iyo shaqal shibanahu waa 22 xaraf shaqalkuna waa 10 xaraf shibanaha waxa soo raaca wax la yiraahdo hamza oo qurxiso ku dhawaaq ama qoraalka af Soomaaliga shibanahu waa 22 shaqaladuna waa 10 tobankaas shaqal shalna waa shaqal dheer shalna waa shaqal gaaban oo shaqal marna waa gaaban yahay shaqalka marna waa dheer yahay sida tusaale ahaan markay isku tagaan shaqal iyo shibane ama shibanaha hormaro ama hadaba maro ama shaqalka hormaro ama hadaba maro ama shaqalka ha u dhaxeeyo laba shiban oo isku xiraa macnaha waxa la yiraahdaa afsal wiiraha alanka waxa waaye waa isku taga shaqal iyo shibana markay cod sameeyaan ayaa waxa la yiraahdaa alan laba alan markay isku tagaan ama saddex isku tagaan waxay sameeyaan erey ayay sameeyaan oo macna la buuxa leh ereyga dhowr erey markay isku tagtana waxa helaysaa word oo جملة بوحدة وأفعال واحد نقولها جملة لكن أصلا هو وير أما وير أوكي واحد تسار تقاله أوكي أمر أي مرك ألانكا وأساسكا إريجا مرك تصال أهان با أو شبنا يا أو شغلة يا با أو شبنا مرك صوت صبح نقطي وعن الألان باب مركش وانا شغل قاون مركي نقطة الشغل لأن باب مركي لبضان عد وحا ودحيسي فرق شغل قاون إيش شغل كدير باب oo keeni kara laba macno oo kala duwan beeb marka intaadan qoraalka barto waxaad rabtaa inaad waxa u baahan tahay inaad ogaatid shaqalka iyo shibanaha sida isku raacaan mid kale waxaad ogaataa erey kasta oo aad ku dhawaaqdo inuu u qaybsamo alan oo shaqal iyo shibana israacay
iyo shaqal shibir israaci iyo shaqal shibir israaci ereyga sidaas inuu ka kooban yahay oo ereyga dhismihiisa uu ka yimaado alano badan oo isku yimid alankan uu yahay markii shaqal iyo shibane ay israacaan tusaale ahaan judge marka ma kala reebi kartid sababtoo ah haddii era jh wax macno ma samaynayso marka kan waa hal alan waaye waa laba shibane oo shaqalka isku xiraa jiij ayay noqonaysaa tusaalaha ayaa soo socda weli marka xarfahaas horta inaad baratid oo darsinkan isaga ah oo meesha ka muuqdo inaad horta macnaha ku noqotid oo naqtin aad ka dhigatid oo aad fahantid sida shaqalka iyo shibanaha af soomaaliga ay isku raacaan oo si fiican aad u aqri kartid marka waxaan qabaa markaad barato akhriska shaqalka iyo shibanaha israacay oo shaqalkan uu dheer marna gaaban yahay inay ku siinayso macno buuxa ama aragti buuxda oo ku saabsan qorista af soomaaliga tusaale faf faaf fef feef fif fiif fof foof fuf fuuf marka haddii aad barato sida loogu qoro ereyadaas iyaga ah waxay ku sahlaysaa marka ereyga afka aad ka tiray inaad si sahlan u qortid tusaale ahaan halkan waxaa noo yaallo ereyo af soomaali ah oo aan naqaano oo aan ku hadalno marka ereyada camal markaan rabno inaan qorno masalan tusaale ahaan bat waa da marka waa hal alan waay halkaas alan oo ka kooban shaqal shibane bat waa hal alan waaye ma la kala saari kara ba dad ma dhihi kartid marka waa alan waaye alankaas ayaa waxaa sameeyey codka ah bat ereygan tusaalahaan markaa ku dhawaaqaysid haddaad tiraad bat waa inaad shaqalka dheeraysaa laakiin bat markaad leedahay waa shaqal gaaban marka waxa waaye qoraalkaad waa inuu ku salaysan yahay ereyga saa ugu dhawaaqday timo halkan ereygan isagaa timo waa laba alan waaye waa ta-i oo noqotay ti iyo ma oo noqotay mo waxaan filaa haddaad dib ugu laabatid cashirkii aan ku bilaabay waxaan dhan waa ka wada helaysaa timo marka waa hal alan iyo hal alan oo isku tagay oo sameeyey ereyga ah timo jid wuxuu ka kooban yahay 3 xaraf ayuu ka kooban yahay oo ah shibane shaqal shibane waa hal alan waa isagana alan jid xaaqin marka ereyga markasta aad qoraysid hubso ereygaasi meeqa alan ayuu ka kooban yahay masalan haddii magacaadu uu yahay maxamed waa ma oo ma ah xa oo xa ah med oo med ah ma da ah maxamed xasan wuxuu ka kooban yahay xa oo hal alan ah san oo hal alan ah qalad waa lat waxaa ka kooban yahay 2 alan oo ah alanka hore wuxuu ka kooban yahay 2 xaraf alanka labaadna wuxuu ka kooban yahay 3 xaraf qalad kan waa 2 alan waaye oo ka hore uu yahay 2 xaraf oo ah du iyo kan markay isku darsameen labadaasi alan waxay sameeyeen dukaan marka hore waxay ahayd du iyo kan markay isku darsamaan waxay noqonayaan dukaan roo oo alan ah iyo ti oo alan ah markay israacaan waxaa kuu soo baxayo rooti saaxiib sa'a waa hal alan oo ka koomo 3 xaraf oo ah hal shibane iyo 2 shaqal dheer iyo xiib oo ka koomato 4 xaraf oo ah hal shaqal hal shibane 2 shaqal iyo hal shibane
xiib. haddii aan kala qaado waxay noqonaysaa saa oo raacday xiib markay isku tagto waxay samaysay macnaha erey macno leh oo ah saaxiib. shir waa hal alan waa sha'ira shir. dheg waa hal alan dha'ega. cabitaan waa 3 alan ayay ka koobantaha ereygan isaga oo ah ca oo gooni ah bitaan. saddexdaasi alan markay isku tageen waxay sameeyeen ereyga ah cabitaan. cabitaan. gacan ga waa hal alan can gacan. far halkan 2 alan ayaa ku haysataa ga oo hal alan ah can oo hal alan ah markay isku tagaan labadaas alan waxay sameeyeen wax la yidhaho gacan. alanka iyo aad ku wareer alanka af ingiriis waxa lagu yidhaha salibal waaye salibal. okay waa isku taga vowels and consonantka oo codka sameyna ayaa la yidhaha alan af soomaali waaye. ma doonayo ingiriis badan inaan meesha aan soo geliyo. far fa a ra waxa waaye waa hal alan oo isku taga waaye. qalin qa waa hal alan qa a. lin waa alanka labaad alan markay isku taga waxay sameyneen ereyga ah qalin. marka had iyo jeer ereyga aad ku dhawaaqaysid intaada qorin ka hor hubso meeqa alan ama meeqa maqdac ama meeqa goos ayuu ka samaysan yahay. alanka ama googooskana waxa waaye waa isku daga shaqalka iyo shabanaha oo isqabsanaa. qalin. kabo luk waa 3 xaraf waaye. shaqalkaas uda ah ayaa isku xiraa la'da iyo ga'da waxay noqotay luk. marka 2 alan lagama dhiga ma la kala qaadi karo waa hal alan waaye. marakh nabat walaal hambalyo waa 3 alan. yaxaas isna waxa waaye waa 2 alan ayuu ka kooban yahay. marka runtii qorista af soomaaliga waxa waaye sida ereyga ugu dhawaaqdid ayuu u qormaa. marka waxaan kula talin lahay runtii waxaa u baahantay waqti yar inaad gelisid cashirkii ugu horreeyey oo aan horey usoo marnay oo ahaa isku tagga shaqalka iyo shabanaha oo shaqalka markuu dhan yahay markuu gaaban yahay. marka waxaan rabaa haddii aad barato silsiladda ama mareegta ereyadan ay isku raacayaan inkastoo macno ayna samaynaynin laakiinse inaa waxay ku baraysaa sida alanada ay isku raacaan ayay ku baraysaa. haddii intaan aad barato oo aad qorto isku taxallujiso insha allah waxaan filayaa inuu ku sahlanaan doono qoraalka af soomaaliga. markan waxaan rabaa inaan soo qaato marka alano ka bilaabanayo ereya ka bilaabanayo shaqalada ama ha gaabnaado ama ha dheeraade. there waa 2 alan. okay so ereygan hadda fiiri alankan gooni u taagan waa gooni ayuu isku taagaa laakiinse maadaama aasaaska uu yahay waa hal alan ayaan usoo qaadanaynaa adeer. markaas keligiis wax shaqal oo shibara ku dhegan ma leh marka waa hal alan waaye adeer. markaan markuu yahay waa shaqal dheer shibano ma laha laakiinse hal alan ayuu taagan yahay. mus hel do waa 2 alan. il waa hal alan. iib waa hal alan. oncod waa 2 alan la waaye. oori waa 2 alan le. ukun marka alanka mararka qaarkood run ahaantii markuu 2 shaqal dheryahay mus waxa waaye waa laysku dhawo alan waa loo soo qaadan karaa laakiinse markaan uu yahay keligiis ukun waa hal alan ayuu noqonayaa. adeer waa hal alan waaye laakiin markuu 2 shaqal dheer yahay wuu istaagi karaa keligiis. mus markan camal waa 2 alan waaye. eedo marka sidaa ula socdo
uun waa hal alan waaye oori waa laba alan waaye sababtoo ah shaqalka markuu dheer yahay wuxuu sameynaa hakasho mararka qaarkoodna alanka macnaha dadka qaarkood ku dhawaaqtaas ay ugu wareeraan laakiin deer maadaama keligiis uu yahay uunu cidno ku dheganayn shaqalkan uu dheereen waxaa waaye hal alan ayaan usoo qaadanaynaa adeer runtii cashirkii gaarkaan ugu talagalay qorista af soomaaliga intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa walaalayaal haddii aan wax qalday ama si qalada waxay u dhaceen ha layga soo soco insha allah sidaan horeba idaada ka hore idinku sheegay halkana waxaan usoo galay inaan cashirka wada barano af soomaaliga oon u wada istaagna barashada af soomaaliga runaantii markaan iskaashano oo aan wada macnaha wada taageerno oo aan wada falaqeyno wax kastaba saxda ayaan u tegaynaa waa adafanax oo ida leh wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaat iyo kulanti dambe oo xiisa leh